shirkadda basaska dadweynaha Shiis ee ka shaqeysa magaalada Bergen ayaa lagu soo waramayaa in ay waqti kooban ay sameysay baaritaan la xiriiro dadweynaha kala duwan ee adeegsada basaska dadweynaha kuwa oo aan tikidhada wadan. Waxa ayna kontarool ka sameysay gudaha magaalada Bergen ka oo ay ku kontaroleyso dadweynaha isticmaalaya basaskeeda ee aanan haysan ama jaran tikidhada lagu raacayo. 8 aag oo ay ka sameeyeen baaritaano la xiriiro ayaa waxa ay ku baareen tiro dad ah oo gaaraysa 2640 qofood oo rakaab ahaa kuwa oo isticmaalayay basaska kala duwan ee shirkadda Shiis. Waxaana lagu soo waramayaa in tiradaasi markii la baaray laga helay oo lagu ganaaxay 145 qofood kuwa oo aanan jaran tikidho ama aanan haysan wax tikida oo ay baska ku saaran yihiin. Arrintan ayaa ka dhigan in 145 qofood ee waqtiga kooban lagu qabtay baska iyaga oo saaran oo aanan haysan wax tikida in ay tahay in ay bixiyaan 950 koronka Norwejiga ah oo ay isla goobta ama baska lagu ganaaxay ku bixinayaan, ama haddii ay noqoto in jeera ahaan loogu soo diro oo ay dib ka bixiyaan waxa ay ku noqonaysaa in ay bixiyaan 150 koronka Norwejiga ah. Dhacdooyinka ku saabsan kontaroolka dadweynaha basaska kala duwan raaca ayaa sii kordhayay muddooyinkii u dambeeyay. Waxa ayna shirkadaha basaska bilaabeen in ay dadweynaha ku kontaroolaan baska ay saaran yihiin lana weydiiyo in ay haystaan tikid. Haddii aysan haysanna waxa ay la kulmayaan ganaaxyo kala duwan oo lacageed kaasoo qiimaha ugu yar u yahay 950 koronka Norwejiga ah oo ay isla goobta ku bixinayaan ama 150 koronka Norwejiga ah oo ay dib ka bixinayaan. Ganaaxan ayaa si weyn ugu sii faafayo basaska kala duwan ee dadweynaha iyo biibaanaha ka shaqeeya magaalada Bergen oo ay had iyo jeer dhex taagan yihiin sekuuradka kala duwan ee kontaroolada dadweynaha in ay haystaan tikidhada ama in kale. Waxaa jira dad badan oo isku daya in ay basaska u raacaan dhowr stop oo keliya iyaga oo isla cidna ma saarna, dabadeedna lagu qabto baska gudihiisa halkaasna ay kula kulmaan ganaax adag. Shirkadda basaska ee Shiis ayaanan weli carabaabin tirada lacagta ah ay ka soo xareysay waqtiga kooban ay ku baartay ilaa iyo 2640 rakaab ah. Halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. Waxaana idinla socodsiinayay anigoo Cabdullaahi Shiine.